difaaca jidhka waa habka uu jidhku iskaga difaaco walxaha dhibka gaadhsiin kara ha ahaadeen kuwa ka yimid dhinaca dibadda oo loo yaqaano bakteeriya iyo kuwa ka dhashay jidhka dhexdiisa oo loo yaqaano kansar. haddaba difaaca jidhku waxa uu ka kooban yahay waxyaabo fara badan sida unugyo loo yaqaano white blood cells iyo welibana molekiyuulo caawiya unugyadaas oo loo yaqaano cytokine. haddaba daawada inagu maanta waxaynu ka hadlaynaa cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka kuwaasoo cilmi baadhis ahaan lagu xaqiijiyey. ku soo dhowow kanaalka Nafaqa Channel. ugu horeyn kaarootada ayaa ka mid ah cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka waayo kaarotadu waxa ay ka mid tahay cunooyinka sare u qaadaya difaaca jidhka haddii aad cunto taasoo firfircooni ku abuuraysa unugyada cadcad ee jidhka ka difaaca caabuqyada noocyadooda kala duwan. toonta ayaa iyaduna ka mid ah cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka waxaana loo adeegsadaa xanuunada uu fayrasku keeno sida ifilada, durayga iyo hargabka. waxaana la arkay in halista hargabka ay yarayso 70% waa markii toon la isticmaalo. dhinaca kale dacarta ayaa iyaduna ka mid ah cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka waayo dacartu waxay kobcisaa difaaca jidhka sababtoo ah maaddo ku jirta dacarta ayaa waxaa la arkay in unugyada difaaca jidhka u qaabilsan inay aad uga shaqaysiiso oo weliba falgeliso. waxaa kaloo la arkay in dacarta xilliga qandhada haddii la cabo in qandho jabis ahaan ay u shaqaynayso inkastoo aan weli la fahansanayn qaabka ay qandhada u jabiso. dhinaca kale midhaha loo yaqaano strawberry ayaa isaguna ka mid a midhaha sare u qaada difaaca jidhka. midhahan waxaa ka buuxa fitamiin C oo la wada og yahay inuu difaaca jidhka muhiim u yahay wuxuuna jidhka ku caawiyaa ka hortagga xanuunada jeermisyada ka dhasha. waxaana la wada ogsoon yahay ama sidoo kale fitamiin C-ga waxa uu muhiim u yahay maqaarka. sidaa daraaddeed dadka joogteeya cunnada fitamiin C-gu ka buuxo jidhkooda dhaqso ma yeesho laablaab ama duubduub. geedka loo yaqaano moringa ayaa isaguna ka mid ah cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka waayo geedka loo yaqaano moringa waxa uu hoos u dhigaa infekshanka gaar ahaan infekshanka qofka muddada dheer soo hayay oo difaaca jidhkuna uu la qabsaday. geedka moringa waxa uu caawiyaa in awoodda difaaca jidhka uu kordhiyo si infekshanka heerkiisa loo yareeyo. haddaba maadada ku jirta geedkan oo difaaca jidhka kordhisa ama kobcisa waxaa loo yaqaanaa isothiocyanate. difaaca jidhka isaguna waxaa sare u qaada midhaha loo yaqaano babayga. babaygu waxa uu sare u qaadaa hawsha unugyada difaaca jidhka. waxaa kaloo ka buuxa fitamiin C oo isaguna muhiim u ah difaaca jidhka. liindhanaanta ayaa iyaduna ka mid a cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka waayo liindhanaanta waxaa aad uga buuxa fitamiin C-ga. fitamiinkan oo xoojiya difaaca jidhka waxa uu la dagaalamaa infekshanka ay fayrasyadu keenaan sida hargabka iyo weliba ifilada. dhinaca kalena midhaha loo yaqaano qajaar qadhaadhka ama bitter melon luuqadda ingiriisida loogu yeedho ayaa ka mid a cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka waayo cilmi baadhayaashu waxay sheegeen midhahani inuu kobciyo difaaca jidhka islamarkaana sare u qaado welibana uu beerkana sunsaare u yahay oo 100 garaam oo midhahana waxaa laga helaa 80 milligaraam oo fitamiin C-ya. dhinaca kalena faa'iidooyinka ay xuseen cilmi baadhayaasha ee midhahan ku jira waxaa ka mid ah inuu yareeyo tarmidda unugyada aan dabiiciga ahayn sida kansarka oo kale. wuxuu kaloo awood u leeyahay la dagaalanka jeermisyada bakteeriyada, fangaska iyo fayraska. waxaana jirta cilmi baarayaal ku taliyey dadka qaata daawada cudurka HIV inay joogteeyaan cunista midhahan si tarmidda fayraska u yaraado maadaama dhinacaas waxtar looga arkay. difaaca jidhka waxaa kaloo sare u qaada kalluunka. kalluunka waxa uu fiican yahay cilladaha isdifaaca jidhka ku dhaca kuwaas oo asal u ah xanuuno badan oo ay ugu horrayso macaanka noociisa koowaad, roobatiisanka iyo xanuuno kale. joogtaynta cunista kalluunka wuxuu yareeyaa halista macaanka type 1 sida dhowr daraasad ay sheegeen. dhinaca kalena sanjabiilka ayaa ka mid ah cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka
waayo sanjabiilku waxa uu sare u qaadaa difaaca jidhka isagoo firfircooni geliya unugyada difaaca jidhka ka qayb qaata gaar ahaan kuwa loo yaqaano lymphocyte-ka oo hawshoodu ka mid tahay la dagaalanka fayrasyada. sidaa daraaddeed hargabka iyo wixii la mid a sanjabiilku aad buu wax uga taraa. basbaaska ayaa isaguna ka mid a cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka, waayo basbaaska guduudan ama casaanka ah waxa uu u roon yahay xanuunada bakteeriyadu ay keento ee ku dhaca sanbabada sida oof-wareenka iyo borokiitada. dhinaca kalena midhaha bocorka ayaa iyaguna ka mid a cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka, waayo midhaha bocorka waxaa ka buuxda maadada loo yaqaano sinki, waxayna jidhka muhiim ugu tahay maadadani dhowr waxyaabood sida ka qayb qaadashada xoojinta difaaca jidhka, koriimada unugyada jidhka, hurdada, dhadhanka, carfinta, caafimaadka maqaarka, xakamaynta sonkorta, caafimaadka jinsiga ee ragga. dadka ay maadadani ku yar tahayna waxaa la arkaa hargab ku soo noqnoqda, caajis badan, niyad jab, findoob, miisaan yari iyo ku liidashada waxbarashada iyo xifdinteedaba. waxayna dhowr weyn ka ciyaartaa sare u qaadista difaaca jidhka carruurta iyo dadka waaweynba. dhinaca kalena difaaca jidhka waxaa kaloo sare u qaada midhaha loo yaqaano raqayga ama xamarta. raqayga ama xamartu waa midho dhanaan oo ka baxa dhulka ay Soomaalidu badanaa degto, waxayna carabtu u bixiyeen tamar hindi, inkastoo isla magaciisii asalka ah ay u yaqaanaan oo xamar ah. ingiriiskana isla magacii carabta ayay u bixiyeen oo ah tamar hindi. taariikhdu waxay sheegtay inuu asal ahaan raqaygu ama xamartu ka soo jeedo bariga Afrika iyo jasiiradda Madagaskar, kadibna ay ku faaftay dalalka Suudaan, Masar, galbeedka Afrika ilaa iyo Hindiya. kadibna waxaa loo dhoofiyey jasiiradaha Caribbean-ka loo yaqaano ee Ameerika u dhow. haddaba raqaygu 17% waa aashito, gaar ahaan nooca liindhanaanta, waana waxa u yeelaya dhanaanka saayidka. waxaa kaloo ku jira maadooyinka phosphorus, magnesium, calcium iyo cusbada sodiumta loo yaqaano iyo vitamin B3. haddaba intaa kadib khubarada caafimaadku waxay aaminsan yihiin in raqayga ama xamarta midhaha lagu magacaabo ay ka hortagto joojinta cudurka kansarka islamarkaana kordhiso tayada habdhiska difaaca ee jidhka. xabxabka ama qaraha ayaa isaguna ka mid a cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka, waayo qaraha ama xabxabka waa midho faa'iido u leh jidhka bini'aadamka. waa midhaha ugu biyaha badan inta la og yahay, waxaana lagu qiyaasaa 92% inuu biyo yahay. saasay tahayna waxaa ku jira nafaqo kala duwan oo uusan jidhku ka maarmin, kuwaasoo kala vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E iyo borotiino kala duwan. haddaba vitamin C oo ku badan xabxabka darteed ayaa waxa uu ka mid noqday cuntooyinka sida la yaab kale u xoojiya awoodda habdhiska difaaca ee jidhka aadanaha. geesta kale liin macaanta ayaa ka mid a cunooyinka sare u qaada difaaca jidhka, waayo waxaa lagu caddeeyey daraasado badan oo caafimaad in liin macaantu ay ka mid tahay khudaarta ugu faa'iidada badan marka la eegayo xagga caafimaadka, iyadoo ka difaacda jidhka cudurrada waxyeeli kara sida wadnaha iyo beerka. sidaa darteed liin macaantu waxay taageertaa habdhiska difaaca cudurradu inuu si fiican u shaqeeyo, waayo liin macaanta waxaa ku badan vitamin C-ga, kaasoo caan ku ah inuu jidhka ka caawiyo habdhiska difaaca cudurradu inuu noqdo mid si fiican u shaqeeyo oo weliba xoog badan, kaasoo difaac fiican u yeesha inuu ka hortago khataraha ku iman kara habdhiska neefsiga ama dhuumaha neefmareenka. waxaa kaloo ku jira liin macaanta maado la yidhaahdo ascorbic acid, taasoo la mid a vitamin C-ga kana difaacda qofka inuu caabuq jidhkiisa ku dhasho. dhinaca kalena waxaa kaloo jirta maado kale oo loo yaqaano sabanan oo sidoo kale laga helo liin macaanta laf ahaanteeda, waxayna ka hortagtaa walxaha cudurrada wada ee jidhka dibadda ka soo galaya, taasoo qofka sida joogtada u qasta liin macaanta aanu qaadi karin xanuunada durayga iyo hargabka. haddaba maadadii aynu ka soo hadalnay ee loo yaqaano ascorbic acid ee liin macaanta ku jirta waxaa ku badan macdanta loo yaqaano ironta, taasoo ka qayb qaadata in habdhiska difaaca uu si fiican u shaqeeyo. dhinaca kale midhaha loo yaqaano rumaanka ayaa xoojiya habdhiska difaaca jidhka, waxaana hal ka mida midhaha rumaanka ay ku siinayaan 16% ka mida
baahidaada maalinlaha ah ee fitamiin C-ga. sidaa daraaddeed waxaa lagula taliyaa in si joogtaa loo isticmaalo si uu u xoojiyo nidaamka difaaca jidhka, gaar ahaan waqtiyada qaboobaha si looga hortago cudurrada durayga, hargabka iyo welibana fayrasyada.